السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا ومدى الصومالية دورن وأنيكي شينو عليها مشارح شينو كريبي وإذن له سودو هذا وحربا إنان برنامج كانوا جوابه سؤال ضد بدن مسكحوا كجو حسوا صوماليا متجوكتا حلقي شدال لغا سو صار لها سؤال شاس با وحربا إنان ماركتي كجوابه انتي أقونتيدا iyo xog baaris badan oo sameeyay mid gudaha ah iyo mid maxaa ku raadayay dibadaba ah anu ka hadlay shirkii London in ku filan waa laga yiri marka anu meesha ma tagin xog badan kama hayo wacaalkeedu waa uu gaaban yahay de meel aadan xogteeda ahayn hada ka hadashidna adiga waxa weeye ku ceeboobaya marka meesha anu xog kama hayo shirka kama hadlayo hadalla kama noola Soomaali waxa weeye badankoodu waa ka wada hadleen horeyna uga hadleen hadana uga hadlamayo laakiin waxaan leeyahay horta ma la jooga su'aashaas ka jawaabaya anigu hal si share gareeyo nacala shida ku yaale anigu fikradeyda markaan ka hadlo fikradeyda shiina culay ahaan ra'yigayga gaaban sax iyo khalad ku raba had noqday markaan ka hadlo Soomaaliya waagi shida laga soo saari lahaa lama joogo xilligii laga saari lahaa Soomaaliya shida lama joogo laba sabab darteed loogama joogo suurtagalna kama aha waa mare arinta gudaha dadka Soomaali dhex taala suurtagal xilliga ka dhigi meeso in shida la soo saaro arinta labaadna waxa weeye marxaladda guud ee caalamka ka jirta waxa weeye iyaduna saamix meeso in Soomaaliya shida laga soo saaro hala si share gareeyo barnaamijka hala si share gareeyo ayaanta runiyo been baasal sudaba walaaqayay anagu wixii Ilaahay nagu og yahay oo ay nala tahay baalka ka sheegayna marka hala si share gareeyo marka kun share ku dhacdo oo kula gaaro baana ku furanaya janaalkayga YouTube shiina culay subscribe tayaalaga la dhaafin qofkii raba inuu si joogto ah ugu xirnaado waxa weeye horta shidaal hadii meel laga soo saarayo Soomaaliya Puntland baa ugu dhaweey 2005 markii la doortay madaxweynaha xilliga Cabdi Muuse Ilaahay oo naxariistay buu shirkado la heshiiyay wuxuu yiri kaalay shidaal loo soo saara shirkadaha yimi mid la oran jiray African Oil iyo Ranger Sauce iyo Australian iyo balaaha baa yimi wadankii bay baareen marka haday baareen meel bariga Igdaysal dhaho ba gawaari bay keensadeen oo barigii adu dhul badan bay saaminayeen waa garaacayeen dhulka meel Igdaysal dhaho bay ku qadeeyeen meel adu iska cidla ah oo mana oo dhulkii ay baarayeen ku jirtay ahayd waa ku qadeeyeen laba reer oo majeerteen kamid ah oo reerna Cali Jibrahil la dhaho reerna Cali Salmaan la dhaho ba meeshii gaaladu markay ku hogatay oo ku daahday Igdays oo ku qadeysay bay waxa istuseen war meesha shidaal baa laga helay gaaladu wax kale ugu daahin meeshaas waa ku rafteen meesha shidaal baa ceegaaga labadii reer baa meesha ku tartamay waa banaan cidla ah oo omasa ceel ma leh geed ma leh waxaan ku yiraahdaa haadka duulaa baqtiya meeshii bay isku qabsadeen Cali Salmaan habeen buu soo guureeyay meeshuna maxaan ku yiraahdaa dhinaca Cali Jibrahil ka xoogaa u dhaway habeen bay soo guureeyeen subaxii baa waxa lagu warhelay meeshii iyaga tuulo ka dhistay maxay ka tahay waxa ka tahay ku habso shidaalka halka gaaladu ay ka heshay idinku qaatay ka tahay waa ku habsadeen meeshii waa la soo kacay subaxii misi gudoodibe masaajid guryo berkado adduun tuuloyba ka istiraadeenba nimanka Cali Jibrahil waa u yimaadeen wuxuu dhahay meesh taranaga leh nimanka isku qabsadeen xabada ka dhacday dagaalkii halka ka dhashay Cali Jibrahil iyo Cali Salmaan ka dhaxqaxay 200 dad ka badan baa ku dhintay muxuu isaga dhintay dadkaasi meeshaas gaala ku qadeysay baaritaankii baa gaaladii ku daahday shidaal baa laga helay dawlad kala dhicisa ma jirto mid Soomaaliyeed warkeeda tii Puntland halka joogtay oo shirkadaha keentayna tabar waa u weeday labadii reer waa laba jilib oo majeertay kamid oo ilma adeer weeye oo waxaan ku yiri ilma adeer abti iyo eedo iyo waxa badaxigtay xigaal ah oo iyagu isu ran hufees kaga dhigay calaashan meesha shidaal gaala ku hakatay marka meeshii waa loo tagay waa loo dhaartay aduu aakhirkii balaayo war waxa la yiri war balheede waagi halka shidaal laga helo bal waa la idin kala qayminaya xabada joojiya waa loo dhaartay khubradii baa la keenay gaaladii baa la keenay gaaladii dhaar xataa waxa mareen beebel waxa lagu dhaaray baa qaare war meesha anagu waa ku qadeynay waxba kuma ogin dawladii baa xataa dhaaratay oo tiri war meesha wax gaara oo dalka uga socon oo laga helay ma jirto labadii reer sidii baa lagu kala qaboojiyay waana lagu kala raray labadii boqol oo qofna magtoodii sidii ba ku kala qaateen bal waxa ka sheekaysaan hadda hadii la yiraahdo Soomaaliya sida laga soo saaraya
هوية يا دارود كلا دالي اللي عند دبهجسين وسمسي من جتو قبيلة الصومالية مقطع يا كلا دالي markay isku daaleen isku dhinteen oo isku beeno iska barbar dhaceen ba qolo walba wixii tiraade warsaatan dan ma ilaahay laga boqo xaga qolo walba meesha u jaahay maarta u jarmaay ka tabay iska aadi hawiye daarooda kala daala hada xabada soo qaadanay saaxiibka daar cali soo shalay lana wuxuu kala xaraq dheere ba iyo inta hobyo iyo ba 200 oo waxa fadhiya fuusto inta mudug warsacad iyo waxaan idhi Umar Maxamed indhow taxabada kama dhexdhicine wallahi wadnaha furtu ku hay ama hadalka daahir inta run moodaan hadda xabada isula tagaan baayir ya oo gobolka mudug ah la isku qabsaday marka horta waxa weeye Soomaaliya oo galeyda Turkigu soo siiyo suuqyada ka iibsata waa loo yahay dadku suuqyada dadka masaakiinta aan gaarsiin marka la yiraahdo shidaal baa la idin soo saaraya oo billions dollars ba qaadanaysan sidee ugu heshiinayaan kuma heshiin karaan shidaal in la soo saaro waxa ka horeysa dadkii Soomaaliyeed inay ku heshiiyaan nidaam ay leeyihiin dawladnimadii ma lagu heshiiyay lagu ma heshiin si daba lagu ma heshiin ma aga dhigan amisom baa wadankan joogta al-shabaab baa joogta waxa jiniya jaan baa joogta ma xagee shaarka lagu saara shidaalka waxa laga yaabaa deegaanada al-shabaab haysto inta ugu badan shidaalku inuu ku jiro ba haye ma al-shabaab baa shidaal soo saarnaa waa maya haddaan hadda ceel halka ka jeexno meel dawladdu joogto oo bari ay gaari waxaan ku raahdaayay bambaala al-shabaab soo geliso de inta ku dhimanaysa Soomaaliya dhan baa bargoonaya sida ceelashii shidaalka oo maxaan ku raahdaayay Saddam Hussein markuu gubay dagaalka Khaliijka baa ka dhacaysa marka waxa ka horeysa dawladnimo in lagu heshiiyo in nidaamkii waxa kana diin la helo lagu qaybsan lahaa ay Soomaali ku heshiiso isku dhaarsato ku ballanto waa ka horeysa haye hadda tuuladeeda marka ceel shidaal laga soo saaro anoo reer hebel laandheera maxaan xaq u leeyahay Soomaali maxay xaq ugu leedahay waa in la isweydiiyo Soomaali maxay xaq ugu leedahay anu maxaan xaq u leeyahay dawladda dhexe maxay xaq u leedahay dadkii deegaanka muxuu xaq u leeyahay shirkadda gaarka oo qodaya maxay xaq u leedahay maamul goboleedka muxuu xaq u leeyahay wixii ma qoran yihiin ma qorna yaa shidaalka loo saaraya marka haddii deegaanka shidaal laga soo saaro farmaajo bax aan iraahdo ka warama dawladda dhexe ma aqaanin dhacal la shidaal ku yalma in la dhacal raba haddii ceelka inta deegaanka shidaal laga soo saaro la dhaho baydhabo ba 5% qaadanaysa saa ku qaadataa ma baydhabo geeleedu way isma gaareen maya weligayo isma martiin halkooda nabad ay ga ahaadeen hadda ay iraahdo ka warama maxaana kala saaraya wixiina kala saari lahaa waxa weeye waa inuu qoran yihiin weey waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego shirkadaha hadda shidaalka Soomaaliya raba inay ka qodaan waxa weeye horta shidaal la qodayo Soomaaliya ma jiro shirkadaha raba yar tuuga ah inay yimaadaan dhulkii Soomaaliyeed iska sahamsadaan xogta ay ka helaana marka iyagu ay suuqyada ka iibsadaan 2012 maya 2012 baa ba shirkad African Oil la yiraahdo ba waxay timi bari timi muddo shidaal baareysay ayaantii dama riig bay la soo degeen riigii ma shidaalku ugu qodi jiray bay la yimaadeen meel barigaas oo dhoror waxa dhahaa dhoror faali baa dhahaa waa block dhan oo shidaal ka buuxo bay riigii la yimaadeen odagii faroole ahaa baa tagay dawladii Puntland baa tagtay odagii wax dhacay aan ka sheekeynaya ma ogtay meeshii shidaal laga qoday waxa la shidaal laga qoraya riigii baa laga taagay anigii 4 habeen ma seexan shidaalku soo kii qaaliga ahaa ma ilaa wuxuu biyo ma ma ogtay waxaan isleeyahay war waa la dhargaya odagii faroole meesha ka khudbadeeyay ceelkan shabeel 1 ba ceelkii loo bixiyay shabeel 1 shidaalku markuu soo baxo 6 bilood gudahooda ka soo baxaya Soomaali waxay xaq u leedahay waa naga helaysa anagu waxaan xaq u leedahay waa qaadanayna anigii faroole waxaan leeyahay waa fadhiya saaxiibkii way ku qadimaysaa leeyahay war horta anagu waxaan balaa ku Soomaalida niyadda kale war horta anagu wax kale helo waa soo fadhiya wallahi bay inii sheegmiyo riiga ka waa riigii ugu weyn ee Afrika maxaa kula Afrika laga taago Niger dalka taa laga keenaa la yiri waa riigii Nigeria shidaalku u soo qoray waa 2012 weeye waxaan ka hadlayaa dhacdo dhaba weeye horta shaki ay galay riigu waa riig yar weeye ma ogtay waxaan isleeyahay warkan hadduu shidaal soo saaro kuwii ceelasha lagu qodi jiray hadda meelaha dhulkii reerkiinu la degi jiray dhulaan maaragtay cidina kaaga daba hadleen hadda la tagto tasacbada meelaha shidaalka ka dhargisa riig baa la keenay soo gaalo waa gaalo yaa gaari kara waxa kana qodayaan waxay rabaan inay xogta helaan ay shidaalba soo saari mayaanba wixii bay garaaceen bam 4 bilood baa inuu naga dhacaysa ugu jeednay bam subaxii dambe bay waxaan ku yiri riigooda la laabteen barka beesartana war riigeeno ka dhigayeen calaas tan ku yaale nimanku wixii meesh ka helaan noo sheegeen war maxaa meesh ka hesheen war inta birmil baa ugu tagteen naga warsuga wixii xogay heleen London bay la tageen African Oil magaciiba waa bedeltay
يا بي شركة اللي هذا بريتش بتروليوم بكيف سيبا يقول مقالها يوم ما قال هذا شركة وين بكيف ستالي شركة دي مركبة صومالي ومركاسي وحفهمان مركبة شركة دي لباري مش شركة وليد بشركة سيال صوص ارتمها وحبايب بارتا وحا بارتو سهن كاوي قالتا شركة وين بكي قالتا مركا هذا الصومالي شركة بريتش بتروليوم وما سوسعته شيل وما سوسعته غاز برون ما سوسعته وارد اوغي هاي موقتها ودنك حالدي سالو قالتها waxa imanaya shiina anu hadaan shirkad baa hayraahdo yaa min meesaan ina waxni baaro ma ogolidin nin cadaana imanaya yaa nin cadaana imanaya haduu doono wuxuu istaa bahalkii maxaa la oran jiray sanduuq dadka ilka laga saari jiray tuulkaas istaa markaas shidaal bambaaraya war waxa kale oo ilka dadka laga saari jiray hatta aqoon ku nana ma hayno moogtay siyaad bare 1980 kii baa la shidaal lagu soo saaro gaaladii baa ogtimi ceelashu waa loo sheegay halka intaas ku jira shidaal baa ku saarina wuxuu yiri iisoo saari meesha shidaal waa siyaad bare waa dawladda awood lahayd ogeydeen oo Afrika ugu awood badneed wuxuu yiri maandhayaalow waagi dadkan wax bartaan oo waxa wadanka laga soo saaray ay bartaan oo ay garanayaan waxa xaq u leeyihiin iyo xaq loogu leeyahay oo ay xisaabta bartaan oo cilmiga geologiga bartaan oo saliidu inta kala baxda bartaan waaga shidaalka noo saar hadda lama joogo الله سياب بركون حارس الله إن ما هالسومال مفهوم ودي ودي إنه صار مريكب بكدي ما أنت السومال دجال لقوا بلعب والسومال جربان بكل لقوا بفتح ما أنت كيف عنها ما أنت دلوين بينه دلوين أود عيد له وعوي بسن قبيلة قون ما أنت تبرر على لوكل فديا تبرر بنادر هديش ده على جهله بنادر هديش ده على جهله شيرا حق سوكاريان ما بقعد إذا عند سكر الله مقدسك تعالى تيدي عند سكر الله عيدي قبل تاجن مله لكن واحد سلا تعب استمع لجاه الجفاء سلا متكل كايها بسلا ما نقول إذا علىها كم خلصان هي جروا وعركتين رعوين تاكو بحصلا كنعس كسر سلا ما كوا ساشدال بالصوص صار حقيقة ما مخلصان هيك شيخ ساق صومالي بنهم بتاعين بصومالي هيك شيخ ساق ولا يراد هذا بربري يقولوا إن أنتوا ده حساب بلوغ لجهل صومالي ما كسينا يا والله وبالله طلع هو يقصو قدرني هو مركا Soomaaliya inay shidaal la soo baxdo war 20 sano waxa weeye kadib ma sheegin laakiin maanta lama joogo galayda Turkigu la siiyay aan ku heshiino nacala sidaan ku yaal si cadaalad aan u qaybsano ya waa arkaysaa maalin walba xaaf ba hadlayo wuxuu leeyahay dawladda federaalku deeqdii la soo siiyay waxba naga ma siin xaaf ba hadlaya أحمد مدوبة وعمقشين هاي دولة فدرالك وعمقلس أو حلالها جبا مع كسمايات كده يتابعوا ساسو حقوق دي الدولة فدرالك عشورتي لقمص يلاده مركا صوماليدو إن النظام هالشو حسي شرقريو نعم أشتاكو يالي باكو الرئيسة أرنت عالمي تاسوا تنقذها صورت قالوا معها تن عالمك أيس أسامحني وقتي كان إنشتال صوصار وحوي دور سيابود تنكواد وحوي labadii 2014 ilaa maanta oo ah 2019 shanta sano shidaalku hoos buu dhacay wuxuu gaaray barmiilkii $20 $30 maanta $50 buu maraya barmiilkii wuxuu ka soo jabay $140 buu ka soo jabay oo wuxuu ahaa 2014 $140 barmiilku gaaray maanta dawladihii shidaalku soo saarayay oo inta ugu badan soo saarayay oo ruush lahaa oo Sacuudiga lahaa ba 24 saac Janeefa inta ku shiraan waxay ku bariyo tamayaan oo ka wada xaajoonayaan war shidaalka aan dhino Sacuudigu 1 milyan hadhibo ruushku 500 hadhibo maalin walba shidaal baa la dhibaa maalin walba shidaalkii Sacuudigu soo saarayay maalin walba wax buu dhimaa ruushku maalin walba wax buu dhimaa sababtoo ah suuqa shidaalkii uu u baahnaa iyo wax soo saarkii maxaan ku raadayay dawladaha shidaalka soo saaraya ay soo saaraan ba isla kaan waayay suuq wuxuu u baahnaa baa yaraaday waxa la soo saaraya ka batay marka production ka in wax soo saarka la dhimo baa maalin walba lagu heshiinaya 2014 ilaa 2019 hal ceel oo shidaal caalamka lagama qodin Sacuudigan Allah ka dhigay hal ceel lama qodin maxaa la qodaa kuwii qodnaaba wal xirayaaba marka shidaal marka la soo baxayso waxa u baahan tahay maalgelin caalamiya waxa u baahan tahay shirkado danaynaya inay yimaadaan oo lacag shidaal shirkadii shidaalka BP iyo bal eega sanad walba 20 bilyan bay khasaraan iyagoo khasiraya oo ceelashoodii hore xiraya oo dawladii shidaalka haystay maxaa ku dhahdaa ee wax soo saarkoodii dhimayaan Soomaaliya bilyan lagu bixiyo hadda shidaal laga soo saaro aqliga ma gasho
ما قشوا سعودي قاب عيرش سحرية روش كحرية بل إنكو جوجل قرية حتى بنتي مودسان ما أول برودكشن وحصصار كلا دبا مركز صومالي هاد عيد أصوص عطا شركات شدال صوصارتو هاد صومالي أصوص عطا لو حبان إدين صوصارية ما جرتو صوماليا waxa u soo socdo oo ay tahay umada Soomaaliyeed ka digtoonaada waxa weeye shirkada maafiya oo waxay doonayaan inay maxaa ku dhahdaa dhulkeena baloogyadana xuquuqdooda intay qaataan marka iyagu waxa ku jira intay xoogaa sahamsadaan hatta sahan sax aysan maaragtay iyagu aan ku sameyn intay xoogaa sahamsadaan inay suuqyada caalamka New York iyo London iyo Shanghai intay la tagaan marka ku kala iibsadaan bay doonayaan waa halkaas loo socdaa oo shidaalkaasi uu dad maxaa ku dhahdaa dad ay maxaa ku raadayay u rahmad dhulkeen oo haystaan waxa la doonayaa waa taa oo bari ka maalin marka shidaalku qiimo yeesho oo wadamadii shidaalka u baahnaa ay dhahaan iyo shirkadihii hadda suuqyo cusub loo baahan yahay marka ka bacdi Soomaaliya ay noqoto dad aan gurgurtami karin dhulkoodu madax banaanayn rahmad loo haysto hal laga digtoonaado umada Soomaaliyeed laga digtoonaado anigu leh oday Soomaaliyeed baan ahay nin weyn iyo umushta xoog iyo waxma sheegan bali arimaha laga digtoonaado dadka shidaala la soo saaraya war dadku ma geeyaan baa leenahay dadku ma geeyaan galleeyda dadka cadaalada loogu qaybiyo haye boorashka WFP ka umada si siman loo gaarsiiyo anaga taasaaleen dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu deeqaay caalamka ka helaan ha ku heshiiyeen markaa ka bacdi shidaal waaga laga wada hadlo dada boorashka WFP ku heshiin karin kuma heshiin karaan shidaal la soo saarayo kuma heshiin karaan waxa kale oo idin sheegaya shidaalku waxa weeye waxa la dhahaa dahab madow baa la dhahaa shidaalku dhibtiisu wata Soomaali uma diyaarsana iskama dhicin karto shidaalka dhibtu wado iskama dhicin karto shirkadaha maafiya dalal baa la gubay Liibiya macmar Qadaafi maxaa loo riday Faransiis baa riday riboodyada ugu dambeeyay la soo saaray Faransiisku wuxuu u riday macmar Qadaafi oo Liibiya NATO u weerartay Faransiiska hawlgalka dhan hogaaminayay oo durbaanka u tumayay wuxuu rabay in maxaa ku dhahdaa ceerasha shidaalka uu saami fiican ka helo ee Liibiya Talyaaniga ayaan dhowto maagayay u soo wanifayay Faransiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka Talyaaniga wuxuu lahaa Faransiisku Liibiya isaga halka dhigay si uu shirkadaha Talyaaniga uga soo saaro meesha oo uu isagu maxaa ku dhahdaa saami badan maxaa ku dhahdaa uga helo Talyaaniga iyo Faransiisku Liibiya isku haystaan hadda shidaalka dad masaakiin oo Liibiyaan oo gaajaysan oo bilaa dawladda oo jilbaha dhulka loo dhigay ba shidaalkooda la isku haystaa inaga xagee joognaa marka inaga Soomaali xagee joogtaa war qadar iyo imaaraadka dagaalka u dhaxeeya ba Soomaali ku hafatay oo ka bixi laadahay shidaal baa la soo saaray hadii la yiraahdo Putin iyo Trump ay ku dul gagdamaya war Putin iyo Trump tabar buu hayna uma hayno shidaalku waa waxyaabaha adduunyada maxaa ku raad dagaalada ugu culus ka dhacaan hadda waxa la dhahaa Nord Stream 2 baa la dhahaa beeb waxa jira Ruushka ka imanaya oo hadda Jarmalka aan joogo shidaal keenaya Mareykankii Faransiiskii Jarmalkii Yurub Ruushkii waxaan ku raadayay xabada ka taagan maanta inay ka dhaxdhacda laga baqaya xabada ka taagan maxay isku haystaan beebka waa la keenaya iyo la keenimiyo shidaalku waa wax halis away Soomaali ma tabartaaba male Soomaali duhur cadba saalina ka furmuroodinaya keena waxa haysaanba dehoobe ma tabaran iska cileenay marka anigu oday Soomaaliyeed baan anu shirkii la dhaw kama sheegin xogtiisa ma hayo ma tagin ma soo dheegan intii laga oran lahaa Soomaali dadkii tagay khibrada ahaa waa laga yiri aniga hadal igama banaana laakiin anu waxa ka hadlaya arintii la wadoodo ahayd Soomaaliya shidaal ma soo saari kartaa ma la joogaa waqtigii aragtidayda fikirkayga maya Soomaali ma diyaarsana dawladda ma leh ma heshiin ya ceelal shidaal kuma heshiin karto waxa weeye Soomaali maanta isma aaminsana يا بين شيقية فرماجو محب مقدشو وش حلاقيه راجل محب وش حياة مقدشو حسن بوغ مكفر نادي حسن ما يا فرماجو يا دتك كوك عسن وايو فرماجو يا بدين ترى بدين حسن شيخ دتك كشقين لا او مركو مينيسوتا تغي مركو لندن جوجو كم دارادي يا هاين رير بي هاين marka Soomaali waxa weeye wali isma aaminin nidaamka isku aamin lahaydna ma dhisan nidaamka hal gaaro waxa weeye maxaa la yiri waa socon weynaan orodno waa suurtagal ma dad bi 9 mitir la soo bixi waayay u jiray ama 5 mitir aha oo dadkoodii maalin kasta haraad u dhimanayo baale maanta shidaal baa la soo baxaya shidaal inaan la soo baxno waxa ka horeysa biya inaan la soo baxno baa ka horeysa
biya inay la soo baxnaa ka horeysa markaan biyo la soo baxno markii dawlad awood la noqono markay ciidamada dhisano markay argixisada jabino markay dastuur dhameystiran yeelano markii maxaa ku dhahaa nidaam dimuqraadi ah oo dhameystiran oo hanaanka asxaabta badan aynu u gudubno markaynu madaxdeena la xisaabtami karno inoo soo golo joogsan karaan maxkamadihii iyo maxaa ku dhahdaa hay'adihii kala madax banaanaadaan markaynu helno awood iyo cudud ciidan oo ceelasha shidaalkeenu la soo baxno inoo difaaci karta oo cadowga gudaha oo argixisada leh oo maxaa ku dhahdaa jaahil kale oo qabiil kale ina ka caabin karta cadowga banaanka Mareykan oo Ruush leh yaa hus ina ka oran karta oo Ethiopia leh markaas shidaal waa la soo bixi karaa laakiin maanta Shiina Culay wuxuu leeyahay shidaal lama soo bixi karo lama soo bixi karo war cali jibraahil iyo cali saleebaan oo laba jilib oo maxaa ku lahaa majeerteena intii kala gaartay oo meel yar oo shidaal tuhun ah shidaal baa ku jira yaa intii kala dhimatay war hooy Soomaali maanta hadii la dhaho meel hebel baa shidaal ku jira war hooy toban jibaarkeedii iskaga dhiman baa leeyahay anigu nin weyn baan hay saasaan leeyahay waa ninkii Shiina Culay ahaa indho telefoon soo galin waxa way hala sii share gareeyo channelkayga YouTube Shiina Culay subscribe hala saaro Facebook follow hala soo dhaho hana la sii share gareeyo waa ka baxaya cabaar ka bacdo ku soo noqon doona mawduuc kale ka hadli doona laakiin share tayaale la dhaafay nacala shidan ku yaalta taas la isku dhaafay ta igu hiid niman share ku siin karin maxaa wadaagaysan mashidaal baan wadaagi karnaa nacala shidan ku yaal share ba ma wadaagi karnaa mashidaal baan wadaagi karnaa maya marka share in ku heshiino oo boga Shiina Culay share aad tirahdaan baynu shidaalka saa soo daldali karnaa waa ninka Shiina Culay oo leh 800 hadda ku sii jirta si share gareeyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.